dadkaas waxay noogu dareen in cid kasta oo waddanka u noqonaysa oo dadkiina laga qaadi doono airportka ku yaala Dadaab xeryaha qaxootiga deegaanka Dadaab ku yaala loona geyn doono deegaankii ay ka timid haddayna toos u tagin meesha ka timid meesha ugu dhow tusaale haddii dadka laga saaro halkan diyaaradda markii laga saaro waxaa lagu dejin karaa goday waxaa lagu dejin karaa qabrdahar waxaa lagu dejin karaa jigjiga waxaa lagu dejin karaa kolba airportka macquulka ay ku degi karaan iyadoo loo eegayo dhulka ay ka yimaadeen sidii isugu dhow yihiin dadkana la isu raacinayo sidii ay degaan uga wada yimaadeen haddii tusaale ay Shilaabo oo kale ay 3 flight noqonayso oo Shilaabana airport leedahay airportkaas ayaa laga dejinaya 3 flight halkaas ay mataqaana u baxayaan qaabkaas oo kale dadka waxay noo sheegeen in sawir laga qaadi doono ruux walba 4 sawir oo passport size ah oo digital laga qaadi doono loona gudbin doono safaaradda Ethiopia ee Addis Ababa ay warqad ku soo lifaaqi doonto dadkaas macnaha inay oo approve inuu dadkaasi dadkeedii yahay waddankiina ku noqonayo UNHCR documentigeedii iyo dawladda Kenya documentigeedii lagu lifaaqayo halkaas travel documentigaas ku baxayaan dadku laakiin toos waxay u duulayaan mataqaana Dadaab toosna waxay u degayaan meesha ay ka yimaadeen waxaan rabaa marka inaan soo gudbiyo warbixin ku saabsan arrimaha qaxootiga warbixintaas waxay tahay warbixinta waxaan rabaa inaan waliba soo gaabiyo si aad la socotaan dhowr jeer ayaa waxaa la isku dayay in dadkeena la geeyo meel la yidhaha Kakuma iyo Qalbiyey ama Kakuma waa isku mid oo isku dhow yihiin kuna taala galbeedka Kenya una dhow waddanka la yidhaahdo South Sudan dhinaca kalena ay ka xigto Ethiopia gobolka la yidhaahdo Arbaminik qoraxdana ay ka xigto mataqaana Uganda waa galbeedkaas waa Lake Turkana ama Turkana West meeshaas oo hadda anaga noo jirto dhowr kun oo kiiloomitir ka badan hadda ka hor dad baa laynaga geeyey dadkiina way ku dhibaatoodeen taa warbixinta kuma noqonay horaan dhiibay ugu dambaystii bishii afraad ee sanadkan April ilaa iyo maanta intii u dhaxaysay waxaan ku jirnay hardan dagaal meeshaas la idin qaadaya iyo uma socono qoomiyada kale oo mataqaana sida Oromada iyo Gambeelada iyo wadamada mataqaana Great Lakes la yiraahdo kuwa mataqaana Uganda iyo Congolese iyo Rwanda iyo South Sudan iyo nala jireen dhamaantan isku duubnay ayaan u diidnay arrimaha anaga nagu dadeen oo hormoodu ahayn kuwaana marka muddo badan markaan iskaraacnay dadkii ugu yaraan mar waxa la yiraahdaa safay bay ku soo rogeen cod baa laga qaaday dadkii way diideen haddana waxa la yiraahdaa profiling yay matana ku sameeyeen oo dadkii haddana wax laga qorayo dadkii haddana way diideen waxa la yiraahdaa xagee doonaysaan dawladdu meesha aan baydin haysaa meeshan xeriyahana waa inaad ku sii joogtaan lama ogole waxaan yiraahdaa anagu dal baan leenahay dalkan laga wanaadinaa midka dhabaha muddo naga maqnaan maanta jawaabti keeneen su'aal bay nagu celiyeen go'aankiinu wali ma sidiiba haa baan dhahnay waxay anaguna jawaabtaan idin wadnaa waxaanu la hadalay dawladdii iyo wadamada ka soo qaxdaan sida Ethiopia oo kale dawladda federaalka ahayd iyo meelihii kale mataqaana sida gobolladii federaalkii UNHCR joogta mataqaana Addis Ababa baan u dirnay jawaab bay keeneen waxay dhahan waa diyaar dadka waan aqbalaynaa hal la keeno waan soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay inay yimaadaan waana la isku waafaqay sidaa daraadeed berri oo bisha September 12 tahay 2019 waxaa la idinka rabaa cid kasta in ay tagto xafiiska dib u celinta ama repatriation office ee UNHCR xeryaha Dadaab iyo Xagadheer iyo Ifo iska report garayso intaas bay noo sheegeen kriig wuu dheeraada waan ku soo celinayaa raalli ahada mar kale ku soo noqonayaa waxaan weydiinay su'aalaha soo socda iyo waliba codsiyo waad xaqiijisay Soomaa inay mataqaana wadankii ay ogolaadeen inaan tagno anagu maadaama aan ahayn qaxooti siyaasadeed aan ahayn qaxooti dagaal ahli ama civil war ka soo qaxaan aan ahayn dad abaari keentay aan ahayn dalxiisna aan u imanin oo nimid dad asylum seeker nabadgelyo doon aan ahayn
waad xaqiijiseen soo maaha waxaan weydiinay maxaad noogu ogolaan weydeen in aad dad halkan ka baxo ay soo arkaan wadankii oo soo qiimeeyaan noloshiisa iyo xaaladiisa waxaa la yidhi laba xaalo labadaba way suurtageli weyday tan koowaad idinka ayaa codsaday inaad wadankiina u noqotaan annagu idinkuma naaqasbin sida Soomaaliya oo kale UNHCR baa qalqaalisa dadku inay noqdaan laakiin tan idinka qalqaashaday wadankiina inaad ku noqotaan idinka oo diidaya qalbiye iyo kakuma midda labaad haddaad Soomaaliya oo kale yani ay saas ka dhici jirtay inay soo arkaan dadku Soomaaliya dagaal ehli ahayd way baabaaday dhulka ku dhacday 0 degree bay noqotay laakiin Ethiopia waxay aqoonsan tahay inayna dhibaato ka jirin oo macnaha inay meelo dhibaato ka jireen laakiin wadanku dhisnaa xukuumadu lahaa marka anaga ka hay'ad caalami ahaan UNHCR haddaan nahay nooma musaamaxayso ama dowladda Ethiopia nooma ogolaanayso inaan dadka aanu soo fiirfiirino tuulooyinka iyo degmooyinka soo eegno oo raalli hada waa markii afraad waxay ka saray telefoon baa hadda iga jaray soo dhex galay afwan marka arrintaas waxay ku adkaysteen UNHCR inayna musaamaxaynin xagga shuruucda caalamiga iyo dhaqanka Ethiopia inay sidaas yeelan marka waan isla qaadanay marka inay taas laga gudbo waxyaalaha la isasiinayo waa horaan soo sheegay waxaan ku yidhi mataqaanaa yacno dhaqaalaha dib bay kasoo sheegi doonaan hadda waa shirkii koowaad iyo waa maalintii koowaad laakiin dib bay kasoo sheegi doonaan hawshana waa la bilaabayaa arrintaas iyada ah waa mataqaanaa waa sidaasay u dhacday dadka aad bay ugu farxsan yihiin dad baa hadda inta iska tagay oo socdo oo dhulkii mataqaanaa aadayo maalin walba qaar baa dhexda ku xidhan oo meel waji aragteeda ah marka dadka waxaan codsan lahayn marka inay arrintaas ay wajahaan maanta aad baa la isugu hambalyeynayay mar haddaan taa ka baaqanay dee tanna mataqaanaa annaga dooranay marka lagama ahaan karo insha allah qaxootinimada in laga baxo waa muhiim hadda arrinta waxoogaa dadka isu dhibay waxoogaa isu siyarnabayana xagga waxbarashada mooyaane yani ma aha in yani nolol kaliya mataqaanaa aad la isu siinamaya laakiin waxaa jira waxyaalaha waxbarashada baa muhiimadda la siinayo waxbarasho halkan laga heli karo ayaan xaggaa laga helaynin heerarkeeda yani sida ardayda mataqaanaa secondaryga gabagabeynaysa ama kuwa ay dadka shahaadooyinka mataqaanaa gabagabeynaya imtixaanada shahaadiga ay kusoo dhow yihiin marka insha allah waan kolley la furdaamin doonaa marka intaasaan rabay inaan ku wargeliyo marka waxaan mataqaanaa jeclaan lahaa marka mas-uuliyiinta sharafta halka ku jirta in ay u alooleeyaan oo istaagaan in dadkan xagga dhaqaalaha iyo waxyaalaha la siin doono in xafiiska diblomaasiyadeena madaxa diblomaasiyadeena mataqaanaa ku yaala mataqaanaa Addis Ababa iyo madaxdeena sare ee aad kamid keen idinku inuu alooleeyaan UNHCR culeys la saaro UNHCR iyo Kenya la soo culeys la soo saaro khaasatan UNHCR iyo international donor community-ga in dadka pocket money ama lacagta la siinayo in mataqaanaa arrinta iyada xogaa laga dhigo oo dad mataqaanaa yani si ay ula qabsan karaan oo markay tagaan waxoogaa bal maalmo ay mataqaanaa iyo inay buulal waxoogaa ku yeebi karaan iyo mataqaanaa meel dadka ku dhex galaan in mataqaanaa la siiyo hadda dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan waa 400 oo halkan laga siinayo iyo 200 oo markay gudaha galaan la siinayo waxaan jeclaan lahaa in looga badiyo dadkeena oo wax ka badan la siiyo 100 sheegaya waa $400 weeyaan ala shakhsi ma ala qoys wala shakhsi waxa kaloo jirta 6 bilood oo la siiyo waxa la yiraahdaa scoop ama raashin lacaga waa lacag iyada lafteedu oo ay ku qaadanayaan qaab yani loogu soo dirayo telefoonka loogu soo shubayo kale oo lacagtaas macna wax xisaaban tahay raashin marka 6 bilood markuu ruuxu joogo oo kii yani haddana markuu 6 bilood qaatay inta waa wadanka uu Soomaaliya gudaheeda joogo way ka joogsanaysaa dadka mararka qaarkood waxaa la siiyaa dhul ay degaan marka waxaan codsan lahayn mas-uuliyiinta sharafta leh in arrimahaas dhaqaalaha $400 dadka looga kordhiyo inay u alooleeyaan 6 biloodna ay laga badiyo ilaa iyo sanad iyo bar iyo la mataqaanaa ugu yaraan haddaan laga badin laga dhigo dadka deegaamada ay tagayaan inay dhul ay degaan laga siiyo waxbarashada in laga caawiyo caafimaadka in laga caawiyo dadka in lala socdo in loo furo xafiis dabagal ku sameeya
haddaynu nahay xagga mataqaanaa jooxo iyo xaggan maamulkan hadda jigjigo joogo oo kale oo mataqaanaa xagga culeys laga soo culeysiyo xagga federaalkana in dadkaas mataqaanaa si integration mataqaanaa u dhexgalaan mustaqbalka dadka u dhexgalaan ula qabsadaan in mataqaanaa ay arrimahaas la sameeyo inay mas-uuliyiintu u istaagaan insha allah waxaan filayaa in marka ay noqonayso guul marka waa in la ogaadaa arrimahaas waxaa jirta oo kale arday iyaguna jaamacadaha dhigta oo iyaguna meel dhex ay u marayso bal waxaan isku dayi doonaa ardayda mataqaanaa jaamacada dhigta oo kale ama kuwa secondaryga gradyada ugu dambeeya ku jira iyo in mataqaanaa ay qoysaska ay ka tirsan yihiin ama dhalay ama ay la dhashay ama haya ama mataqaanaa waa mas-uuliyiinta ka in ay ku qanciyaan xafiiska repatriationka inay kaarkooda u gooyaan ay sii joogaan waxaa kaloo jirta dad badan oo ay dadkeena isdhex galeen dadka Kenya iskuursadeen kuwa laga yaabo inay faraha Kenya galeen oo xagga kibaandhaha iyo iyadana ciladaha ka timaado oo iyagana arrimahaas kuwa ay Soomaali iskuursadeen yani dadku ma wada mataqaanaa kulli toos uma wada baxayo waxaan filayaa inay cilada jiri doonaan ciladahuna ma aha yani wax dhibahe dee ruuxun baa laga yaabaa inay safarkii ka dhigayso dee hadduu safarku fiicnaana way ka dhiganaysaa hadduu joogana isagana mataqaanaa kolley qaynuun iyo sires wuxuu ku joogayaa si la ogol yahay marka bal inahaasaan xusuustaa sidaa mas-uuliyiinta hawla socdeen waxaan codsan lahaa in arrintan aan ka hadlay ay la sheergareeyo xagga mataqaanaa mas-uuliyiinta sida doctor ugaas cabdullaahi maxmed khani iyo mataqaanaa hogaanka haaj arrimo qaxootiinta kasoo hadlayna dee haddana waa arrimihii mataqaanaa marna waa arrimo bulsho mar waa arrimo jaaliyadeed